asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka iyo warbixinadu waxay idinkaga imanayaan warbaahinta badweyn. qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxda maamul goboleedyada oo shir xasaasi ah uga furmaya Nairobi iyo cabsi xoogan oo soo wajahday dowladda federaalka Soomaaliya. kooxda al-shabaab oo bilaabay mashruuc aan horey looga baranin oo faa'iido weyn u ah dalka. banaanbaxyo rabshada wata oo ka socda magaalada Beledweyne. farmaajo oo ka hor yimid qorshe uu watay Abiy Ahmed oo imaaraadku gadaal ka riixayo. haddaba muxuu yahay qorshahaas? madaxweyne xaaf oo sheegay in gurigiisa Muqdisho uu tagi waayo cabsi darteed. yuu ka cabsanaa xaaf oo Muqdisho jooga. Somaliland maxaa ka jira in lama sumaasuqay mashruucii shaqaaleynta ee bangiga adduunka? iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo go'aan adag ka qaatay xiisada ka taagan gobolka Hiiraan. intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roon. haatan warkeeniyo fidsan. waa maalinimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay bisha 6 tobankeeda 2019. warkeeniyo fidsan. madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa isugu tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ku yeelan doonaan shir ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka kuna taageerayaan go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabeelle ay ku sugan yihiin dalka Kenya, waxaana ku sii jeeda madaxweynaha Puntland oo ka tagay imaaraadka iyo madaxweynaha Galmudug oo maanta ku wajahan Asna. ujeedka shirka Nairobi ee madaxda maamul goboleedyada ayaa ah sidii ay ula kulmi lahaayeen wakiilada beesha caalamka iyagoo gaarsiinaya go'aankooda ah inay hakiyeen la shaqayntii dowladda federaalka iyo soo dhaweyntii qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobeed ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. waxaana codsigooda ka mid ahaa sidii qorshaha kala guurka ee road mapka loogu samayn lahaa Soomaaliya 2020. maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa horay u soo saaray inay hakiyeen xiriirkii wada shaqeyneed ee ka wada dhaxeeyay dowladda federaalka, waxaana shirka ka maqan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gacan saar dowla leh dowladda federaalka Soomaaliya. dhanka kale, xarakada al-shabaab ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya ayaa deegaanka Kunya Barrow ka hirgeliyay mashruuc lagula dagaalamayo kaneecada oo dhibaato badan ku haysa deegaanka. mashruucan lagula dagaalamayo kaneecada waxaa fulinaya dhalinyaro loo tababaray sumeynta kaneecada, kuwaas oo adeegsanaya awoodooda iyo agab kale oo loogu talagalay la dagaalanka kaneecada. xarakadan shahiidoonka ee al-shabaab ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in mashruucan lagula dagaalamayo kaneecada oo ay ku baxday dhaqaale badan iyo juhdi, waxayna sheegeen in mashruucan horey looga fuliyay deegaano fara badan. daawadayaal, waxaan bartanka ugu jirnaa wararkeena iyo warbixinadeena, balse haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena kala duwan ee aan soo gelin doono haddii aan loo yiraahdo bartaan. banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare isla markaasna lagu taageeraya gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka soconaya bartamaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada ayaa banaanbaxa ka qayb galaya iyagoo wata barar ay ku qoran yihiin eraya ay ka mid yihiin ka dhibaatada Hirshabeelle ay ku hayso gobolka Hiiraan. dadka ka qayb galaya banaanbaxa ayaa waxay wadooyinka ku xireen dhagax waaweyn kuwaasoo u diidaya in gaadiidku ay maraan wadooyinka magaaladaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka dibadbaxyada dhigaya ay tageen goob u dhow saldhigga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyagoo ka soo horjeeday xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye Dabageed. banaanbaxan ka socda magaalada Beledweyne ayaa lagu soo waramayaa inuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaaladaasi, sida ay badweyn u sheegeen goobjoogayaal ku sugan magaaladaasi. maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Waara uu xilkii ka qaaday gudoomiye Dabageed, iyadoona arrintaasi ay keentay inuu muran ka dhasho xilka qaadistaasi. dhanka kale, warar hoose ee heshay wakaalada wararka ee badweyn ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka biyadiiday qorshe uu watay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo doonayay inuu isku soo dhaweeyo dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
xubno ka socda dowladda imaaraadka carabta ayuu kulamo kala duwan kula yeeshay magaalada Addis Ababa iyadoo waxyaabihii la isla soo hadal qaadanaya qayb ka ahaayeen in la hagaajiyo xiriirka imaaraadka uu la leeyahay guud ahaan dalalka Geeska Afrika. saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu warqad u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka dalbaday inuu miiska wada hadalka isugu keeno dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta. madaxweyne Farmaajo ayaa eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu qorsheynayo afgambi oo ku rido dowladdiisa isla markaasna ay tahay khalad weyn oo laga galay dowladdiisa sidaa darteedna aysan diyaar u ahayn wada hadal uu la yeeshay Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intaas raaciyay digniin oo u diray Imaaraadka taasoo ku aadan in wali uu carqalad ka dhex wado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhowr jeer samaysay isku day ay ku doonayso inay ku soo celiso xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda Soomaaliya balse madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo horjeestay iyadoo madaxda kale ay diyaar u yihiin in la wada hadlo. daawadayaal wararkayno harina waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka hadlay cadaadis xoogan oo kala kulmaya dowladda federaalka Soomaaliya oo xilliga khilaaf xoogan kala dhaxeeyo. waxa uu sheegay madaxweyne Xaaf culayska ka haysta dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo uu keenay inuu tagi waayo gurigiisa ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kalena ay ku adkaatay inuu tago Cadaado inuu diyaarad ku dulmaro mooye. sida uu sheegay culayskan haysta ayaa sababay in hal sano aan tagin gurigeyga Xamar Cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa laakiin intaas oo dhan dagaal baan ka xigaa waana gaari doonaa ayuu yiri madaxweyne Xaaf. madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka mashaariic ay horay u ballan qaaday in ay ka fulinayso deegaanada Galmudug aysan wax badan ka qabanin. Xaaf ayaa sidoo kale beeniyay inuu jiro khilaaf kala dhaxeeya madaxda Al-Sunna waxa uuna xusay wararka la baahiyay ay ka dambeeyaan dad uu sheegay inay ka soo horjeedaan horumarka ka jira Galmudug. dhanka kale hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland ayaa maanta ka hadashay eedeymo musuqmaasuq oo loo soo jeediyay kuwaasoo salka ku haya mashruuc tayeenta shaqaalaha Somaliland oo uu maalgelinayo Bangiga Adduunka. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Farax Aadan Haybe oo ay wehelinayso Marwahinda Jaamac Gaani oo ah wasiirka shaqagelinta Somaliland ayaa maanta si wada jir ah la hadlay warbaahinta iyagoo ka warbixiyay qaabka uu shaqeeyaan mashruucii dib u habeynta shaqaalaha. gudoomiye Farax Haybe ayaa ugu horeyntii ka hadlay waxyaabaha ka jira eedeymahaasi isagoo ka dhawaajiyay inaysan jirin lacag lulunsaday waxa uuna yiri Banka Adduunka website-yadiisa ayuu ku baahiyaa tilaabo kasta oo lacag ku bixinayo macnaheedu waxa weeye intaasi waxba qarsooneyn. xog laga soo qaatay website-ka World Bank waxa uuna soo galiyay website-kiisa suurtagal ma ahan in wax la qalday ama la qiyaameeyay ayuu soo galiyay website-ka World Bank. waxa uu intaasi ku sii daray shaqada la qabtay ee xafiiska ugu imid baa tilmaamaysa wixii dadaal ah ee la qabtay oo aan jawaab ka bixiyo si aan u ilaaliyo qiimaha iyo milgaha sharafta aan u hayo iyo sharafta xafiiska aan joogo oo dharbaaxada ugu weyn ee la bixinayo ku dhacayso. dhinaca kale wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa faahfaahin ka bixisay qaabka ay u baxaan lacagaha mashruuca tayeenta shaqaalaha ee uu Bangiga Adduunka ka taageero Somaliland. lacagtaasi 10 milyan waxaa loogu talagalay 2 sano oo hore inay noqoto sanadkii walba 2017 ilaa 2018 2 milyan iyo 500 oo calaad sanad ah. 2 sano oo ka dambeysay midkiiba 2 milyan sanadka ugu dambeeyay halka uu noqonayo 1 milyan ayay tiri Marwahinda Gaani. waxayna intaas ku sii dartay waxaa tagay waa 2 sano waxaana ku jirnaa sanadkii 2019 lacagtiina way noo talaa lacagtuna waxay ku wareegtaa akoonada uu Bangiga Adduunku la leeyahay iyo wasaaradda maaliyadda dhexdeeda waxaana loo dalbaa foojar maalintii miisaaniyadda loo qorsheeyo. ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo dhawaan xilka qaadis ku sameeyay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilka qaadistaasi ka dhalatay xiisad xoogan.
gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaa diiday inuu baneeyo xarunta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka isla markaasna uu wareejiyay xilka kadib markii ay u tageen waxgarad iyo siyaasiyiin reer Hiiraan. madaxweyne Waare ayaa haatan qaatay go'aan ah in si qasab ah xilka looga qaado gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Hagar Dabageed lana soo xiray iyadoo ay xusid mudan tahay in Dabageed uu wato ciidamo aad u fara badan oo isaga taabacsan kana soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha. dhanka kale warar ay heshay warbaahinta Badweyn ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan qorsheynayaan inay farageliyaan xiisadaasi waxaana xubnahaasi ku jira xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hiiraan. xilka qaadista Dabageed ayaa timid kadib markii uu khilaaf xoogan soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. waxyaabaha la isku khilaafay waxaa ka mid ah hanaanka loo marayo canshuurta gobolka Hiiraan. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeena iyo warbixinadeena balse haddii aad ku cusub tahay ha hilmaamin inaad subscribe iyo gambeel